السلام عليكم kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food waa maalin cusub iyo fiideo cusub waxaan ku guda jirnaa taxanihii aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan intaan fiideogeeda guda galin haddii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar haddii kalena asxaabtaada iyo ehelkaaga la sii wadaag fiideogeena maanta wuxuu ka kooban yahay sidaad arkaysaan fadaa'irka sida loo sameeyo laba qaab oo kala duwan ama laba nooc oo kala duwan oo anagu fadaa'irka u sameeyo ayaan rabaa inaan idin la wadaago qaybta koobaad waa ala shakl hilaal ama star sidaad aragteen qaybta kalena waxa weeyaan goobo ayaan ka dhigayaa dhaxdana waxaan kaga daray khudaar labadoodaba insha Allah taala fiidooga intaad ku guda jirtaan waxaan idin la wadaagayaa waxa uu ka kooban yahay iyo sida aan u sameeyay insha Allah tobanka dambe Ramadaan ayaynu galnaa imika Ilaahay noo barakeeyo aynu isku soo duceyno Ilaahay dhamaanteen acmaasha saalixa ah naga aqbalo dhamaanteena Ilaahay na xafido haddii aan ku soo noqdo fiidoogeena maanta cuntadan waxaad u baahan tahay waxyaabaha soo socda si aad u samayso waxaan u baahanahay hal koob oo caano qandaca ama caano diiran hal koob ayaan u baahanahay sidoo kale waxa aan ku darayaa milqaacad sonkor ah sidoo kale waxaan ku darayaa 2 milqaacadood oo fixisa ah ama khamiir ah in yar oo milix ayaan raacinayaa intaad isku yara walaaqdo waan yara daboolayaa waxaan deynayaa 10 daqiiqo because waxaan doonayaa inuu khamiirkaasi si fiican igu soo faxo ayaan doonayaa 10 daqiiqo kadib sidan ayuu noqday marka imika waxaan guda galayaa insha Allah daqiiqdeena inta ka dhiman inaan inoo qaso waxa aan ku darayaa 2 koob oo daqiiq ah daqiiqdan isticmaalaya waa nooca aan fixisada lahayn ee plain-ka ah taas waa fixisada yani la milqaacdo marka hore uga dhigay sidoo kale waxaan ku darayaa koob badhkii oo saliid ah ama subag la soo dhalaaliyay waxa aan ku darayaa hal xabo oo beed ah beedku jileec ayuu ka sii dhigaa haddii aan doonayn inaad beedka ku darto ama xasaasiyad ku leedahay waad ka deyn kartaa laakiin yani roodhida ayuu soft kaaga dhigayaa markaad beedka ku darto waxa aan ku sii darayaa koob badhkii oo daqiiqa ayaan ku xashiyaa marka haddii aad doonayso marka ugu horeysa 2 koob iyo badh daqiiqaad ku shubanaysaa haddii kalena sida aan sameeyay ayaad sameynaysaa oo 2 koob daqiiqaad marka hore ku shubaysaa marka dambana badhka in yar ayaad ku xashaysaa bac baan ku xirayaa waanan deynayaa ilaa 30 daqiiqo ilaa 40 minute meelahaas ayaan dhigayaa inta uu daqiiqdeedu iga soo faxayso imikana waxa aan sameynayaa filinka ama gudaha waxa aan kaga daray hilibka aan sida aan u sameeyay waxa aan ku darayaa hilib duqad shiishida waa nus kiilo meelaha hal xabo basalo weyn oo soo jarjaray toon iyo sinjibiil noocan waa nooc radqan ee isku jira filfil ama black pepper pepperoni waliba ka casaankan doorkan isticmaalayaa sidoo kale milix intaas ayaan ka kooban yahay waxaan gudaha kaga darayo imika waxa aan sameynayaa ama aan idin tusayaa sida aan yani u sameeyay ama aan u soo shiilay qoraalkan insha Allah dusha ayaan idin soo dhigayaa dab khafiif ah oo yani badnayn ayaan ku sameynayaa la socod wanaagsan insha Allah inta aan arki doontaa sidaan isku dardarayaa hadda fadaa'irku waxay ku jiraan waxyaabaha yani aan aadka ugu fiican Ramadaanta dadku ay isticmaalaan laana ofinka ayaa la gelinayaa saliid ma laha haddii aad xataa sambuusaha iyo shiilitaankiisa neceb tahay ama aad neceb tahay waxyaabaha oiliga saliidda la bisha barakeysan Ramadaan inta lagu guda jiro fadaa'irku waxa weeyaan bedelkooda ayaad isticmaali kartaa يعني waxaad ku bedelan kartaa xagga sambuusa ka cuni lahayd fadaa'irka ayaad samaysan kartaa ama sidan oo kale imika khudradan aan shiilayo roodhi ayaad gashan kartaa roodhida waliba ofinka la gelinayo la sameynayo haddii ii suura gasho inaan soo duubo fiidoogana insha Allah waan soo duubi waqtiga laano aad u yani u adag imika oo la haleeleynin waxba la haleeleynin maadaama iskuuladina noo furan yihiin shaqooyinkii hadana Ramadaan tahay qurbana la joogo markaan waan isku dayayaa intaan awoodo insha Allah taala labada nooc ee fadaa'irkan sameynay ayaan imika idin tusayaa insha Allah qaybta koobaad sidan ayay noqon doontaa
daqiiqdeenu si marka hore u soo baxday quruxda maasha Allah tabaaraka raxmaan. Design-kan imika sameynaya ama noocan sameynaya imika waa noocii goobadaha aan idin tusay. Afarta koone ayaad ka jeexaysaa marka waxa la doonayaa in laga sameeyo flower yani shakal flower oo kale ayuu noqonayaa markaad imika isku soo laabto. Videogan inaan bilowgii Ramadaanta soo geliyay ayaan doonayay laakiin waa ii suuragali weyday inaan editingkiisa hore u dhameeyo ama codka aan saaro. Waxaan rajeynayaa inaad imika aad weli ka faa'iidaysataan inuu goor dambe idinku noqonin. Videoyada mida kale maasha Allah asxaabta la sii share gareeya waqti badan baa anigana iga galay inaan idin soo geliyo si aad uga faa'iidaysataan. Insha Allah markaad ka faa'iidaysataan aad وحيدين ترانا إن شاء الله دعاء نقصو دراء أنا جي والد كيبا إلى نقو أشرح نقصيه وانتان علمي قدتك وفائدينينو marka aad daqiiqda fadaa'irka sameynaysid si fiican waa inaad u xashtid because hadhow toole hadduu adeeg kaa noqdo hadhow markaad ovenka gelisaad samayso wixii wuxuu noqonayaa roodhidii ama yani fadaa'irka waxay noqonaysaa mid qarfado oo la calaalin karaynin oo adag laakiin haddaad marka hore waxaaga balance leeyihiin soft ayay noqonaysaa hadhow toole haddii uu kaa yara adkaado markaad dabka kasoo saartana waxaa la sameeyaa inta meel plastiga lagu rido ayaa la daboolaa 5 minutes 10 minutes baa la yara daayaa kadibna iyada isku huuraysaa wayna jilicsanaanaysaa waayo laydhu markay ku dhacdana uu sii qarfadaa marka qaybta koowaad waa calaa shakl flower ama daa'irada sidaas weeyaan insha Allah waxaan dusha ka marinayaa waxa weeyaan xabad beedoon soo qasay in yaroo waxaan ku daray oil ama saliid ayaan dusha kaga yani isku beed iyo saliid yar ayaan isku soo qasay marka dusha ayaan ka marinayaa raali noqda Ramadaantii weeyaan marka la haraadan yahay codkiina waxa laga yaabaa inuu daciif noqdo sidoo kale waxaan dusha ka saarayaa olive ama zaytuun qofka sidoo u yaqaano waxaan ku sii daadinayaa in yar oo sisina sisintu aad bay u fiican tahay benefit sisinta faa'iidooyinkeeda insha Allah soo baara waxyaabaha sameysanaysaan hadii jeer markaad sisin iyo xabad sooda aad dusha kaga dartaan udgoon iyo carafba u sameynaysaa quruxna way sii siinaysaa qaybta labaad ayaan imkaan tusayaa sida aan u sameeyay waa qaybtii moonka ama starka sidii yani xidigto kale aan ka dhigay qaybtan way fududahay laakiin qaybta hore yara adkayd qaybtan kulli waqti badan idinka qaadan mayso inaad noocan sameysaan mararka qaarkood anigu waxaan sameeyaa sidaan imika u kala jaray intaan u jaro ayaabaa waxaan saaraa cheese kadibna waan isku laabaa macmacaan ayay noqotaa hadhow toolana shiirada ama yani nooca malabka ama shiirada kol qofba siduu u samaysto ayaa dusha lagaga sii shubaa waxayna noqotaa macmacaan bay noqonaysaa xagga imika hilibkaga jiro ayaa cheeseka lagaga daraa ama chocolate waxbaa la saaraa insha Allah video baan isagana kasoo sameeyay haduu Ilaahay ii fududayo waqtigu ii saamaxo marka qaybta kale aad ay u fududahay sameynteedu waa sidaas bas wana diyaar laabaysa
saas weeyaan isagu wax oo complicated ama wax adag maaha. ofinka ayaan gelin doonaa insha Allah ilaa 20 daqiiqo 180 meelaha kor iyo hoos baad kaga shidaysaa. laakiin ofinka marka hore si yara diiri, ofinka oo qabow ha gelinin, ilaalinayuna ka gubanin. marka masha Allah sidaas ayuu soo baxay. hadda uu noo soo bislaaday udgoonka. mararka qaarkood kanaaban ku casheeyaaba afurka marka aad ka garanaysaa marka timirsiga cabitaanka yar aad cabto waad dawaqaysaa waad dhargaysaa. marka mararka qaarkood anigu kanaaban u dhigtaa cashadeeda oo 2 xabo 3 xabo cashadeeda ka dhigtaa. midabka aad arkaysaan quruxda badan ee golden brown ka ayuu soo baxay. saytuunkii waa noocii dusha ka saarnay cala shakl flower-ka ama goobada aan u sameeyay. qaybta kalena imika ayaan idin tusaya isaguna saas u soo baxay. waa 2 jeer oo kala duwan ayaan ofinka geliyay maadaama tray-ga una ku wada filnayn. waana soft. that's why idinku lahaa beedka ama ukunta ayaa lagu daraa marka la xashiyo daqiiqda siduu soft kuugu noqdo. waxaan rajeynayaa fiidowga maanta inaad ka faa'iideen. اللهم بارك لنا بما رزقتنا وقنا عذاب النار. إلهيو انت هيستنا أسيادة وبركة. انت أن هيسنا إلهيو انت إن كبضا سي حدو إلهي إلهضو. waxaan rajeynayaa fiidowga inaad aad uga faa'iideysateen. waxyaabaha kale aan channelkayga soo geliyana insha Allah waxaan rajeynayaa inaad sidoo kale iyagana ka faa'iideen. channelku waa channel tacliimiya ama cunto karin lagu barto routines iyo waxyaabahaas aan idin bilaabi doona hadduu Ilaahay dhaamo markay bisha barakeysan Ramadaan dhamaato. inta in fiidowgeeda ku kulmi doono waxaan idin leeyahay fi amaanillah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya. naftaada adaa hogaansha, adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye. kun haybood noloshu weeye, kun howlood baa ku xeeran, kun bay hakisaa dharaarba, kun bay si hagaajisaaye. haddaad ku hungowdo kaalin hareer kala soo tijaabi.